السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada mar kale waxa weeye waa cashirkeeni saddexaad oo ah lesson 1 part 3 conversation waa lesson 1 cashirkeeni koowaad part 3 qayb saddexaad conversation waa sheekaysi marka insha Allah tacaala horaan sii soconaynaa waa bogeeni ama maarta yani English aan ugu magacdarnay real life English oo macnaheedu yahay nolosha dhabta Englishka nolosha dhabta ka hadlay marka real life oo nolosha dhabta marka horaan socon insha Allah taala ashkana selfie hadashay waxa leedahay is there a dress code for all employees dhammaan shaqaalaha dhan waxay leeyihiin waxa la yiraahdo dress code na maxaan ku sheegnay labis gooni ah oo loogu talagalay maxay shaqaalaha marka waxay tiri Teresa oh yes many of the jobs shaqada inteeda badan half waxay leedahay uniforms uniform dad loogu talagalay leedahay marka waxay leedahay yes many of the jobs yani shaqooyinka intooda badan jobs waa maxay waa shaqooyinka many waa maxay badan many of the jobs shaqooyinka intooda badan half waxay leeyihiin uniform marka aan ku celiyo kelmad ugu horeysa waxay tiri selfiha is there a dress code for all employees dhammaan shaqaaluhu waxay leeyihiin dress code dhar u gooni ah marka oo yani xidhaan marka dress code way tiri yes many of the jobs shaqada inteeda badan half waxay leedahay uniform marka marada uniform waa maxay iskuulada waxaa loo qaataa maxay uniform marka labiska ciidanku qaato waa maxay uniform marka uniform waa dhar marka yani la qaato oo loogu talagalay yani meel gooni ah marka waxay tiri housekeepers yani shaqaalaha qaabilsan nadaafada housekeepers waa maxay waa qaybta waxay qaabilsan maxay nadaafada haday noqoto gurigii la nadiifinayay dharkii la dhaqayay yani waxaas oo dhan shaqaalaha qaabilsan waxa loo yaqaanaa housekeepers waxay tiri marka housekeepers yani dadkan dharka nadaafada qaabilsan waxay leeyihiin uniform gooni ah bellman waxay yiraahdaa qofka marka yani hotelka yani waad inanta waxay ka shaqeynaysaa iminka hotel shaqaalahana waa shaqaalihii hotelka yani hotelka marka la joogo yani qofku markuu sidaa hotel ku yimaado boorsooyinka marka waa mid kamid shaqaalaha oo boorsooyinka u qaada marka soo diga marka boorsada marka tusaale ahaan waad dareemi kartaa qofku waxaa dareemi kara markuu qofku tago iminka tusaale ahaan meel fog baan uga geen Kenya kama qofku tago iminka dalkeena markaa joogno iska caadi laakiin marka Kenya tagto waxaad ogaanaysaa markaas saa u tagto gaarigii ama taxigaada wato ku dhigo oo maarta alaabtaada dibadda ku dhigo lacagta asiiso يعني waxaad u baahan tahay in lagu saaro yani maarta boorsadii yani waa fooq waa dabaqii marka aad degaysay qolka ka degaysan lagu geeyo maxay boorsadaadi marka boorsooyinka qofka qaaday waxa loo yaqaanaa ama ku soo dejinay waxa loo yaqaanaa bellman waa shaqaale kamid ah shaqaalaha hotelka oo qaabilsan inuu boorsooyinka marna oo yani gawaalada ka dejiyo oo qaado oo ku saaro meesha rabtay marna oo ku soo dejiyo marka waxa loo yaqaanaa kuwaas bellman iyagana waxay leeyihiin labis gooni ah marka housekeeperska nadaafada qaabilsanaa haday qolkii nadiifinayeen haday tahay yani waxa yiraahdo sariirtii iyo wixii dhan ku hagaajinay waa housekeepers bellman waa maxay waa dadka ka shaqeynaya boorsada marka qofku sidaa u soo dago yani boorsadii fooqa hotelka qofku u saaray marka mar uu soo dejinay waxa loo yaqaanaa bellman iyagana waxay leeyihiin uniform gooni ah sidoo kale maintenance workers shaqaalaha ka shaqeeya hotelka ay qaabilsan qaybta iyagana maarta dayactirka iyagana waxay leeyihiin waxa la yiraahdo waxay leeyihiin uniform gooni leeyihiin waxay sababtoo ah hotelka markasta waxa dhici karta waxba gaari kara marka wax gaaraan ba waxa loo baahan yahay in loo sameeyo maintenance dayactir marka kuwaasna waxay leeyihiin uniform gooni ah waxa jira soo kale hotelku wuxuu leeyahay beer marka qaybta shaqaalaha qaabilsan gardeners waa maxay waa shaqaalaha qaabilsan beerta salahan anaga naqaanay garden waxa la yiraahdaa waa beer beeheed gardenersna waa maxay waa shaqaalaha beerta rusheeya ee ka shaqeeya waxaa loo yaqaanaa iyagana yani waxa weeye waa shaqaalaha beerta marka kuwaasna iyagana oo marka hotelku wuxuu leeyahay meelo beerbeerya iyo doog buu leeyahay shaqaalaha dooggaas iyo maarta geedaha iyo waraabintooda qaabilsanna waxa weeye iyagana waxay leeyihiin uniform gooni ah sidoo kale waxay tiri laundry workers shaqaalaha u qaabilsan laundry waa naqaanaa waxaa la yidhahdaa kaabiyada ama waxaa la yidhahdo maxay يعني لما ضايدا shaqaalaha qaabilsan iyagana waxay leeyihiin dhar u gooni ah marka
kitchen staff shaqaalaha jikada iyagana waxay leeyihiin dhar u gooniya markaa server and servers iyo shaqaalaha waiterska ah waiter waa maxay waa qofka markaa dadka dalab ka qaada isagana waxa iyaguna ay leeyihiin all half dhammaantood waxay leeyihiin waxa weeye uniforms markaa uniform markaa waxaan ku soo celiyo markaa cashirkeena oh yes ha bay tiri is there a dress code for all employees dhammaan shaqaalo dhan ma leeyihiin dress code oh yes ha many of the jobs shaqooyinka intooda badan half waxay leeyihiin uniform housekeepers markaa shaqaalaha markaa yacni nadaafadda qaabilsan waxay leeyihiin uniform bellman shaqaalaha qaabilsan boorsooyinka inay qaadaan hotel ka mida iyagana waxay leeyihiin maxay yacni dhar u gooni ah maintenance workers shaqaalaha markaa iyagana waxay leeyihiin iyaga kuwa dayactirkan waxay leeyihiin uniform gardeners shaqaalaha qaabilsan weeye yacni beerta ku dhex taala hodheelka iyagana waxay qaabilsan yihiin dhar u gooni ah laundry workers shaqaalaha markaa qaabilsan يعني يجنا درك إن مارتا يعني laundry workers إمك housekeeper قيمتي نظافة قابل سندوي كون laundry workers وي كوي لما ضايد درك دقيتان كيسي لعلاب كيسي إيو أيجونا قابل سيهن إيه مركا كاوين تيسا أو مارتا يعني فيرين تيسا مركا laundry workers كان يجنا حويه شغالة أصنع عليهن در يعني در أكوني عليهم مركا مذب يعني يونيفورم أكوني عليهن kitchen staff وشغالها kitchada ama jikada waxay leeyihiin iyagana dhar u gooni ah and servers yani waiters servers iyo shaqaalaha markaa yani waiterada oo dadka markaa dalab ka qaadan iyagana waxay leeyihiin all half dhammaantood waxay leeyihiin uniforms markaa uniform marka casharkaasi qaybtaas waxaan umalaya waa la fahmay many of the jobs have uniforms housekeepers bellman maintenance workers gardeners laundry workers kitchen staff and servers all have uniforms dhammaantood waxay leeyihiin uniform markaa okay waxaa leedahay sidoo kale the front desk staff shaqaalaha miiska hore jooga ee qof muqsa usoo gala shaqaalaha qaabilay weeye the front desk staff shaqaalaha miiska hore jooga weersiga waxay xirtaan dark slacks yani saraawiil madow or amase skirts waxaa la yidhaahdo haafaf ama goonooyin skirts waa maxay goonooyin and jackets iyo waxay iyaguna xirtaan jaakado lama ogola dharka inay xirto sababtoo waxaa rabaa inay ekaato professional qof markaa shaqadan u qabanaya yaqaana professional the front desk staff front waa hore desk waa miiskii staffna waa shaqaalihii the front desk staff shaqaalaha miiska hore wearers iyaga waxay xirtaan dark slacks yacni saraawiil markaa madow or amase skirts hadday dumar yihiin waxay xiranayaan ama dumarka laftooda waxay xiranayaan saraawiil iyo skirts waa maxay goonooyin goono ama half hagees waxaa la yidhahdaa half skirts half qaybta hoose dumarku ay xirtaan dharka ay xirtaan waxaa loo yaqaanaa skirts ama half ama goono and jackets iyo waxay xidhaan iyaguna jackets kuwaasna iyagana everyone marka haddana qof kasta oo ka shaqeeya yani hodheelkana weeras wuxuu xirtaa a name tag waxa la yidhahdo name tag saar ahaan waad ogtihiin name tag wax kale maaha waxa weeye waad aragteen markaad joogtiin aeroboorada ama shaqaalaha diyaaradda ogaan kartaanba markaa African Airways tagtaan oo kaleeto yani qof kasta waxa uu xiran halkan waxa la yidhahdo badge ama name tag wax kale ma magaciisa ku qoran yani numberkiisa ku qoran wuxuu ka shaqeeyaa ku qoran waa sumad markaa name tagaas oo lagu garto inuu yahay qof meesha ka shaqeeya markaa halkaas buu wuxuu yani xaggan dhinaca gacanta bidix bay name tag ay wada xirtaan dhammaantood markaa the office xafiiska markaa the office staff shaqaalaha xafiiskana weeras waxay iyaguna xirtaan business suits yani suuladka loogu talagalay ganacsiga marka iyada hadlaysa waxay leedahay I want waxaan doonayaa markaa to wear inay xirto my hide back yani timahayga xagga dambe timahayga dhabar yani timahayga dambaan rabaa inaan xirto I got new clips waxaa markaa aan haystaa oon soo helay oon soo iibsaday weeye markaa new clips waxa weeye imika yani biinanka timaha xagga dambe looga xiro waxaa loo yaqaanaa clips markaa idinkaa yaqaana dumarow clips weeye markaa soo kale clips waxaa loo yaqaanaa clip yani clipskii waa daawaday clip waxaa dhaha tusaale ahaan hadda waxay nagu jirtaa waa biinankaas xagga dambe looga xirayo sida inanta hadda hortiina ka muuqata arki doonto insha Allah tacaala laakiin clips soo kale waxaa la yidhahdaa TV videoga markaad daawato yani qof wax soo duubo
oo video yani videoda badan markuu qofku soo duubo haddaa hal video ka daawato waxaa leedahay waa hal clip oo adigu aad leedahan daawadaniyo hal clip marka waa qayb kamid ah videogii qofkan yani tusaalehaan dhowr video 100 video soo dhigay ama 30 video soo dhigay dhowr video ka dhowr video waxaa leedahay marka dhowr clip baan ka daawadaniyo dhowr clip marka clipna waa loo yaqaanaa markaas oo kaleeto clip hadda laakiin waxay nagu jirtaa soo kaleeto clips waxaa loo yaqaanaa kan lagu baynankan lagu xirinayo maxay timaha soo kale kuwaan lagu xiro maxay yani maxaan ku rahdaa warqadaha waxaasoo dhan waa clips marka laba warqad markaas ku xiraysid clip ayaa ku dhufanaysaa waxaa isku xira hadda kan isku xiro stapler way laakiin waxaan rabaa yani waa arki doonaa si gooni u baran doonaa kelmadda clip laakiin hadda waxaan ugu jirtaa waxaa weeye waa baynanka yani lagu xirto timaha marka waaye horaan usocdo insha allahu tacaala halkaas waxaa weeye the front desk staff shaqaalaha miiska hore wears iyagu waxay xirtaan dark slacks sarwaal madow oo weliba aan ku dhegnayn slacks waxa weeye waa trousers waa saraawiil laakiin aanan ku dhegnayn sarwaalku ku dhegan macnaheedu waxay ka dhigan tahay dadku soo jiidanaya marka dumarka oo kaleeto saraawiil ku dhegantay xidhaan yani nimankay soo jiidanaysaa meeshaan laguma talagelin waa meel shaqo yani laguma talagelin hami iyo waxa in la abuuro marka waxaa weeye waa saraawiil marka slacks saraawiil wey laakiin aan qof ku dhegnayn marka oo professional oo amase skirts goonooyin ama haafaf aan jackets iyo jaakado marka skirts waa naqaan waa in sheego waxaan idhi waa goono waa maxay ama haaf waa maxay waa qaybta annaga halkan surwaal ka xidhno dumarku ay ka xirtaan skirts haaf marka ama jacket ama goono everyone qof kasta wears wuxuu xiranayaa haddana a name tag sumad lagu garto oo ah kamaniga ayuu xirinayaa magaciisi iyo name tag wax la yidhahdo halkaas ayuu ku xiran doonaa the office staff wears xafiiska shaqaalaha yani the office staff shaqaalaha xafiiskana wears iyaguna waxay xirtaan business suits suudadka ganacsiga I want waxaan doonayaa markaa to wear inaa xirto my hair back timahayga dambe I got new clips waxaan haystaa yani clipyo cusub markaa way xiratay kabacdi waxaa hadlaysaa salfia waxay tiri these are pretty kuwani aad bay u qurux badan yihiin these are pretty kuwani aad bay u qurux badan yihiin bay tiri waxay tiri Teresa iyadana like this sidan oo kale now imika like this sidan ay tiri now imika I look like waxaan u ekahay a manager qof markaa maamulo ah labiskii xitaa waa iska saxaya I look like waxaan u ekahay a manager maamule markaa waxay tiri these are pretty kuwani aad bay u qurux badan yihiin iyadana waxay tiri like this sidan now imika I look like imika waxaan u ekahay look like waa maxay u ekaansho a manager maamule markaa aan ku soconaa shakana maanta hal mar aan dul marno tartiib nagoo akrinayna waxa weeye waa lesson 1 part 3 qayb saddexaad conversational sheekaysi is there a dress code for all employees dhammaan shaqaalo dhan waxay leeyihiin dhar u gooni ah oh yes many of the jobs dhammaan shaqada inteeda badan many of the jobs shaqooyinka intooda badan half waxay leeyihiin uniform housekeepers markaan ka hadlayno shaqaalaha nadaafadda qaabilsan bellman yani shaqaalaha qaabilsan boorsooyinka soo qaadista iyo sii qaadistooda maintenance workers shaqaalaha dayactirka gardeners shaqaalaha beerta yani hodheelka laundry workers shaqaalaha markaa yani ka shaqeeya lamadaayada ama waxa la yidhahdo qaybta markaa yani lamadaayada kitchen staff shaqaalaha markaa kitchada ama waxa la yidhahdo jikada and servers iyo dhammaan shaqaalaha qaada markaa dalabyada all half dhammaantood waxay leeyihiin uniform markaa servers waxay lamid tahay waiterku muxuu sameeyaa qofkuu sugaa waa sugitaan sameeyaan waiter qofkuu sugayaa kabacdina wuxuu ka qaadayaa yani dalabkii markaa the front desk staff shaqaalaha markaa miiska hore wears waxay xirtaan dark slacks saraawiil dhaadheer oo madow saraawiil waa maxay sarwaal madow oo markaa yani aan ku dhekanayn oo amase skirts goonooyin ama haafaf aan jackets iyo jaakado everyone markaa qof kastoo hodheel ka midana wears wuxuu xirtaa a name tag waxa la yidhahdo name tag ama badge waa baran doonaa idana a name tag marka waxaan ku sheegnay
waa sumad qofka lagu garanayo inuu ka mid yahay tusaale waxaa idinku filana markaad tagtaan yani qof kasta sida caadiga caalamka waa la wada xirtaa askartu way xirataa shaqaalaha dowladda way xirtaan laakiin adhono soomaalida inay xirtaan the office staff shaqaalaha xafiiska wears iyaguna waxay xirtaan business duties waa maxay suudadka ganacsiga and I want to waxaan doonayaa to wear inaan xirto my hair back timaha dhaba yani timahayga dambe I got waxaan haystaa oon helay new clips beenankii markaa cusbaa beenan cusub markaa ku xirto salafyadeedana waxay tahay these are pretty kuwani aad bay qurux badan yihiin like this sidaanay tiri now imika I look like waxaan u ekahay ama I look like waxaan u ekaaday markaa a manager maamule markaa maasantiin dhammaantiin cashka si fiican u daawada dhawaaqiisa kelmadaadkiisa ku celceliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Is there a dress code for all employees? Oh, yes. Many of the jobs have uniforms. Housekeepers, bellmen, maintenance workers, gardeners, laundry workers, kitchen staff, and servers all have uniforms. The front desk staff wears dark slacks or skirts and jackets. Everyone wears a name tag. The office staff wears business suits. I want to wear my hair back. I got new clips. These are pretty. Like this. Now I look like a manager.